qofka dambiila noqonaya hadaa ma qabto taladii Soomaaliyeedna way dayacanta waxaan rajaynayaa maanta inay arintani buddig u noqoto in siyaasadda guud aan wax ka wada qabsano inaanu ku dhisno waayo dadkani reer Puntland waa dad lagu aamini karaa Soomaali masiirkeeda lagu waan jeclaan lahaa maanta aniga shida ma qabo buuq ma qabo oo isku kalsoonahay alxamdulillah asaga waa ka fiicanahay asaga laakiin midaan ku sheegaya caloosha iyo dhuunta curyaan ka yahay wax igu soo ridkiliya feere gacanta u taagan gacanta ayaa bismillah salaamullahi alaykum siyaasadii Soomaaliya oo waji kala yeelatay isbahaysi cusub oo ka asaasmay Soomaaliya maxaabiistii oo la soo daayay Calan Nuugjiis Amin Jeeso waayeel xiddig siyaasadda ku fashilantay odaygii afkiisa waxa ay ka kartay waa la yaaban yahay yaab ana idin haye iyo waliba jawaabaha degdega ah oo laga bixiyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninka la yiraahdo wasiirkii ra'iisul wasaarihii hore Khayre waxay isku waafaqeen tan maanta ka dhacday baarlamaanka in ay hawl yaab lahayd marka koowaad salliga nabiga subhanahu sallallahu alayhi wasallam hay ilmaaminina waqti haday idin tahay soo tukada kadibna isu kan keena waxaan ku bilaabaynaa marka hore boqor Buurmadow iyo siyaasadda cusub oo Soomaaliya bilowday taladii Soomaaliyeedna way dayacanta waxaan rajaynayaa maanta inay arintani buddig u noqoto in siyaasadda guud aan wax ka wada qabsano inaanu ku dhisno waayo dadkani reer Puntland waa dad lagu aamini karaa Soomaali masiirkeeda lagu waan jeclaan lahaa maanta tanoo kale anoo laascaanood ku horeeya oo geeya haddii aan leeyahay Cornel Maxamed Jibriil iyo xildhibaan Faarax iyo ragii lahaa anoo wada faan bay ahaan lahayd inaan geeyo iyo sharaf bay ahaan lahayd laascaanood maanta ka digo raggaana la kala wareegay markii qoladii Garowe ka timi aanu la wareegaynay oo aanu madaarka ku qaabilay waxay ka warwarayeen qolada kale in aan si fiican loola dhaqamin oo ay dad haddii ay leeyahay dayacan yihiin marka wax laga war anagu boqortooyaanu ka nimi dawlad iyo dad gobob aanu ka nimi maanu xidhnayna sidii dad sharaf leh oo sida boqorrada iyo madaxda loola dhaqmay ragii saa loo dhaqantay baynayaa warna foor buu ku yaalaa waad arki doontaan baanu ku nidhi anaguna waxa sharaf nooca labada qolaba maanta si gobannimo leh in loo gelbiyey qolo walba ay ka muuqato wanaagii iyo sharaftii iyo dhaqankii soo jireenka ah ee dada kan maanta wax la kala wareegay ay lahaayeen ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala nabad inuu mandaqada ka dhigo waxay maanta arrintani kaga duwanay dowladda federaalkaahi qolyihii ay noo keentay ee maxaabiista ahaa ay noo keentay runtii maxaabiisaha kan maanta halkan lagula kala wareegay damiirkoodana waa la ilaaliyey rabitaankooda iyo sharaftoodana waa la ilaaliyey laakiin qolo lagu khasbay inay u labistaan sida ay rabaan maamulka Muqdisho jooga oo lagu khasbay oo haddii aan laba leeyahay aan gobonnimo iyo xaraga ka muuqan waayo way ka qurux badan lahaayeen haddaan abtiyaashii la kala wareegi lahaynoo ay maanta ahaan lahayd reer laascaanood iyo reer Hargeysa ama reer Burca ay la kala wareegi lahaayeen sidaa loo soo sagootiyey way ka qurux badnaan lahayd waan jeclaan lahaa maanta tanoo kale anoo laascaanood ku horeeya oo geeya haddii aan leeyahay Cornel Maxamed Jibriil iyo xildhibaan Faarax iyo ragii lahaa anoo wada faan bay ahaan lahayd inaan geeyo iyo sharaf bay ahaan lahayd laascaanood maanta ka digo wayna ku fiicnaan lahayd waana rajaynayaa inay dhaqso u dhacdo taasina inay dhaqso u dhacdana waan rajaynayaa waxaan jeclaan lahaa nabadda maanta ay daah fureen ay ka wada shaqaynayaan madaxweyne Deni iyo Cabdiraxmaan inay ka bilaabato annaga iyo abtiyada iyo laascaanood waxaan u soo jeedinayaa garaadada sharafta badan ee abtiyadaya in iscafi iyo nabadgelyo aanu ka wada shaqayno wixii dhacay dhace waxa dambe inaanu wanaag nabadgelyada ay labadan oday ee maanta ay bilaabeen dadka kani waa dad aanu taariikhnay reer Puntland waa dad markaanu siyaasadda ku wada soconana wada guulaysan jiray Soomaalina aanu wax wada tari jiray maanta taladii Soomaaliyeedna way dayacanta
waxaan rajaynayaa maanta inay arrintani buddig u noqoto in siyaasadda guud aanu wax ka wada qabsanno inaanu ku dhisno waayo dadkani reer Puntland waa dad lagu aamini karaa Soomaali masiirkeeda lagu aamini karo weeye waxaad ka xasuusataan Cabdirashiid Saan oo la shaqeynay waxaad ka xasuusataan Cabdullaahi Yuusuf Saan oo la shaqeynay qoladayada reer waqooyiga aanu gacanta u siinay dowladdii hore ee wanaagsanayd Cabdirashiid madaxda ka ahna Puntland baa laga hogaamiyey tii Soomaali mustaqbalka u soo celisay ee kala dambeynta keentay ee qabqablayaashii ka saartay ee argagixisadii ka saartay tii Cabdullaahi Yuusuf baa annagana sharaf bayno tahay inaan intaba ka shaqeyno maantana waxaan leeyahay Soomaali way dayacan tahay maqnaanshaha Puntland ka maqan tahay bay ku dayacantay waxaanu rajaynaynaa xubnaha aanu ku leenahay annagu koonfur ragga aanu ku leenahay laf baanu toobin ku haynay baryaha siyaasadda meel aan laga eegin baanu ka eegnay dadka aan Soomaali lagu aamini karin baanu ku aaminay inaanu maanta annaguna taladayada dib ugu noqono bal qoladan aniga nin daarood 20 jeer baan dhalay abtiyada iyo awooyaashay taladu waa naga xumaatay annaga iyaga iyana dib hayso xisaabiyana dib xisaabino haddaan wada soconaa Soomaalina waxba loo taraa qolo waliba halkeeda waxbay ku noqon kartaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay gobonimada maanta ka muuqatay ragga nagu wareejiseen waa boqortooyadii dhaqanka lahaydeen iyo suubanaanta lahaydeen iyo sharafta lahaan jirtay weligiin beel Soomaalida ku taqaanay iyo ilaalinta dhaqanka iyo soo jireenka waa tii lahaydeen aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxa weeyaan kulley wax badan ma joogi doono dib baan hadda u noqon doonaa anigu maanta sharaf bay tahay inaan haddana maanta Puntland joogo waxaan isleeyahay Puntland idinkaga gurigaagii labaad idinkaagama lixjaab badna lixjaab badan horena waan geliyo marxaata ka tiin maantana sharaf bay tahay inaan laygu soo dhaweeyo wasiirka daaqiliga iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada madaarka nagu soo dhaweynaa aad baan uga mahadnaqayaa waxaanu salaan idinka sidnaa madaxweynaha Somaliland waxaan idinka sidnaa shacabigii reer Somaliland waxaan idinka sidnaa salaan madax dhaqameedkii reer Somaliland idinkana taa mid leeg baan idinka qaadi doonaa haddii lahaydno aad iyo aad baa umahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu boqor buurmadow wuxuu ku jiraa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed si kale haddaan u dhigo wuxuu ku jiraa odayaashii isimada ahaa oo 33kii dowladda Soomaaliya weligood xildhibaanada dooran jiray waa nin weligii siyaasadda marba saa dhinac ugu wareejiya waana la yaqaan maanta afkiisa wuxuu ka cadeeyay in dhinaca Somaliland cidda ka socota maadaama uu siyaasaddan hadda socoto oo dhinaca Somaliland la waafaqsan yahay odaygu waa fogaaday laakiin si kasta ha ahaatee wuxuu cadeynayaa in meeshaas ay siyaasad kala taal sheekadiina isbahaysi dhinacan ka yimi inuu imaan doono bal waan arki doonaa kolba nimanka maxaabiista ah oo la kala wareejiyay albaab cusub bay fureen kaliya waxaynu ka oranaynaa albaab cusub oo horay u xirnaa bay fureen iyadoo oo la rabo in laga dulboodo oo lagu qariyo tii Xamse uu xagga ka sameeyay iyo ma garanaysaa Khaatumo iyo dhinacan iyo Somaliland oo ilaa hadda wax bedela aan laga hayn tani waa mid gaar ah oo Puntland iyo Somaliland dhexdooda isdhaafsadeen oo khusayso way ajab marka siyaasadihiina sibay isu diidan yihiin oo way isriixayaan oo qolaba siyaasad gaar ah bay wadataa haddaynu intaa ugu gudubno halkan wax yar la daawo وأيلا تهاي فرسنا على فريسو إذا ما عمل مهدي أنا ليش تاجناتي ميل فريسو ولا إذا أنا لو وقت ما أنا تاي شيء ميل بيجيس نوات هاي ميل بيجيس نوات داشي ميل فريسو ولا إذا ما ترى شيء جري هذا هو أيلا شرعي أنت شرع بشيء وطلع لوين ما تقطع هو فلنا ميل فريسو ولا إذا ما لوكر وقت بدن يا فرتي ولا لو حن كان أصلنا إلى ذيل فريسة هذا المذوبة انتهى صابرة xildhibaanadii inay arrimiyo meesha inuu fariisto inuu isagu shir gudoomiye diiday sababtoo ah isaga afkiisa ka cadeeyay nin gudoomin macnaha xildhibaan isaga lagu doodayo oo wax gudoominaya ma jiro wax yar afkiisa day bal hadalka uu leeyahay daawo hadaan qabto dimbiil aan noqonaya hadaan qabto waa cadiya
haddii aan aniga qabto buu taagana yahay haddaan anigu qabto waxaan noqonayaa dambiile odayga waa loo jawaabay jawaab cajab badan baa waxa siiyey xildhibaan caalanuug waa nin bala ah jisnimadana waa qadar ilaahay dhacday waaye aniga shida ma qabo buuq ma qabo waa isku kalsoonahay alxamdulilah asaga waa ka fiicanahay asaga laakiin midaan kuu sheegaya caloosha iyo dhuunta curyaanka yahay wax igu soo ridkiliya feeriya gacanta u taagan gacanta ayaa u taagan baarlamaankana wuxuu ku baabiye waa taas hadduu aniga ilaahay jisada anigu jisnimadeeda alxamdulilah ilaahay baa qadarta igu keena qadarta ilaahay keenayna oo ku qanacsanahay maanta inuu yidhahdo hebelow adiga duqaa tahay hebelow adiga jisaa tahay hebelow adiga sharci darrada uu ka shaqaynayo dhadhankeeda ka dareemaysaa dhadhankeeda waa kulul yahay laakiin midaan kuu sheegaya waa qaboobi doonaa golahuna soo dhex fadhiisanaya horta nimankan waa kacsan yihiin xildhibaanada maanta xildhibaanadii Soomaaliya buuq baa ka dhacay dagaal baa ka dhacay balaayo feer waa la isfeeray xildhibaan Daahir Amiin Jeesow kali baa lagu dhuftay feeraha lagu dhuftay adigu uun meeshii xildhibaanada xasaanadoodii lama eegin waxba lama eegin meeshii buuq badan baa ka dhacay firim bay wada siteen waa qaylnay midba meel buta xildhibaan adiga baa ka dhacday gudoomiyihiina waa arkaysaan wuxuu soo istaagay dambiila noqonaya haddaan qabto haye waayahay meesha ka wareeg ku-xigeenadaadii caalamadaadsayaasha ahaa oo aan magacoodaba la aqoon sacdiye firimbi baa la yaqaanaa ka kale lamaba yaqaanba bal kaa ku sii xigeenka xataa كان سي دعودن إلا قرت أدو اسكما أو كرتده هراء وعديسي سي لو أو لين عكال عاننو وحيري أنيقا تشيس باناي لا يبا تشيس كريه لكن إذا عراشة إيه هل كانوا جيس كي يقولها وحي أفرينهن لونت وحي أدراشا ملحتو إذا هرتا انتيني أغيد نين كان هذا كهر وسيدا سوكا لقالدو قلي إساقو أو إيران جوغا حلقا لغا قاضي إيران isagoo oo ku maqan oo wifti la maqan oo eeran jira baa xilka laga qaaday tani waa tii labaad gudoomiye baarlamaan oo inta shirka soo gala kursiga fariisan kara isagoo mooshin laga keenayaa ma jiro caalamka kama dhacdo wax dhacan maaha buuqaan iyo qosolkaan iyo kaftankaan waa iska barnaamij kale laakiin sideedaba ma dhici karto wuu qaldan yahay saacadan laga bilaabo gudoomiye baarlamaan uma aha xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed dhinaceeda wali waa gudoomiye baarlamaan xasaanadana wuu haystaa laakiin xildhibaanada dhexdooda kama aha waa xildhibaan dacweysan way waa nin dacweysan dacwad baa lagu soo oogay halkaas fadhiya qof dacwadda iyo sharciga ka weynaan karaa ma jiro qof sharciga ka weynaan karaa totally adduunka caalamka ma jiro لكن Soomaali bay nahaynaa sharciga qofku waa ka weynaan karaa hadda baarlamaankaas kolba si loo qaboojin karo u malayn meeyay inay jiraan sababtoo ah dawladdu intii kale qaboojisay gacanta miday shaqo siiso miday meel geyso miday bahalkayga miday wasiir ka dhigtay ku xigeen laga dhigo midba meel baa la geeyay ragis casilay baa ku jira xildhibaanada oo wasiir inta laga dhigay ku qanci waayay oo wasiirnimada iyagu iska casilay iskood kuwa qaylinaya firmigiisa ka mid yihiin xildhibaan saadam iyo baa kamid ah saasay tahay dad badan oo ay dawladdu gacan marisay baa jirta oo dhinaca caloosha iyo madax iyo laga saraaxay laakiin aan qaadan kuwana waa qaateen oo waa kuwa aamusan kuwana ma qaadan laakiin waxa badnayd inta qaadatay waana inta ay ku aamusnayd awal oo gacantaaga oran jiray maanta laakiin xildhibaanadii waa kuwan way soo wada jeesteen bannaankay taagan yihiin waxay taagan yihiin wax soconaya ma jiraan aadan madoobena sidan kuma sii ahaan doono xildhibaan ka tirsan macnaha gudoomiye baarlamaan sidan kuma sii ahaan doono laakiin wuxuu ahaan doonaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dad badan oo u doodaya waa jiraan laakiin marba haddii 100 iyo something ay taagan yihiin magacyadooda meesha ku qoran yihiin maya ما نقول كرب بل واركي دونا هدي إلى هيد مماشي كل ما توحي ذيك تجيا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نبت قلنا بعدين ينور كل أنت دور صنيع وهرس